إنا لله وإنا إليه راجعون مدحوينها جمهورية Somaliland مدن موسى بيحي عبد isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacabka Somaliland waxa uu dhanbaal tacsiya u diray ciidamada kala duwan ee qaranka Somaliland gaar ahaan ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland wax garadka waayeelka aqoon-yahaninta qoyska eelada qaraabada asxaabta shacabka jumhuriyadda Somaliland ee uu ka baxay Allah u naxariistay marxuun Cismaan Jibriil Xagar oo ku geeriyooday xalay toole taariikhdu markay 5tii bishii shanaad 2020 caasimadda Somaliland ee Hargeysa madaxweynuhu waxa uu marxuunkan ku sifeeyay tiir ka baxay ciidamada dalka kana mid ahaa asaasayaashii salka u dhigay dhismaha ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland xilal kala duwan ka soo qabtay isagoo sanadku markii 2005 ilaa 2010 ahaa taliyaha ciidamada xeebaha ilaalada Somaliland waxa uu madaxweynuhu marxuunkan alle uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo ciidamada kala duwan ee qaranka Somaliland wax garadka waayeelka aqoon-yahaninta qoyska eelada qaraabada asxaabta shacabka Somaliland ee uu ka baxay zamiriyay iimaan sadiiq ah Allah mahad leh warsaxafadeedkan waxa ku saxeexnaa afayeenka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac waa Xamsada Baare telefishinka Star Hargeysa